wuxuu aad uga sheekeynayaa fahanka sharafta sharaf waa maxay tahay dumarka anaga hadaan islaam ama dadka bariga ku nool dumarku waxay leeyihiin sharafta waa sharafta ninka sababtoo maanta walaalka hadii wax la yeelo waa laga yaabaa inaad ka arsato waa laga yaabaa inaad ka arsanin laakiin walaasha ama hooyada ama xaaskaaga ama gabadhaada hadii wax la yeelo way ka duwan tahay sababtoo ah waxa lagu qiyaasay sharafta ninka waa dhowrsanaanta familkiisa ehelkiisa maanta markaa fiiriso gabdhaha Soomaaliyeed TikTok dhex taagan ee wada qaawan ee wada neekinaya ee isruxaya ee wax kale oo dan qabanayeen waxa isweydiinaysaa war away dadkii dhalay dadkan waayo mujtamac waxaan nahay muxaafid oo diin leh oo dhaqan leh oo wanaagsan maanta qofka Soomaaliga ah waxa la Soomaali ka hor waa dad xaafid quraanina waa dad wanaagsan waa dad sharaf leh markii maanta qof aan wariga Soomaali arko TikTok galo oo arkay gabdhaheena oo wada neekinaya oo isoo ruuxaya oo wada ooynaya oo markuu arko qofkii maxaa niidi soo galay away mujtamac liiga sheekeynay waa arrin runtii mafhuumka sharaftu waa wax u baahan in xalaqooyin laga qabto dadkeen lagu baraarujiyo